السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإن سلامي ومدى الصوماليات ميل كستو كجوكتان با دونيدا دعالاديدا وحان الله هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامتا وقيمة يقايا بدنا يعني نقول سلامي وكذا حيث ومدى إسلامك وقونا شرفت بدن وقونا أجرك بدن ما شاء الله. waxaan rabaa bismillahi rahmaani rahiim hadii ilaahay raali ka dhigo inaan insha Allah laba qodob maanta aan duubo hadii ilaahay raali ka dhigo oo aan qodob aniga aan leeyahay iyo qodob dadka shacabka ama gabdhaha ila soo xiriiray ee leeyihiin oo qaari fariin ku dheehan tahay oo duco iyo la rabo insha Allah in aad ilaahay u baridaan qalbi deganaan ay ka hesho ayna commentiga la socoto insha Allah waa ka balan qaaday hadii ilaahay raali ka dhigo. midda koowaad aniga ayaa iska bilaaba insha Allah. waxaa la yiraahdaa adduunyadu waa rajo, rajadana rabbi raxmaanka ayaa looga mahad celiyaa. haddii aad ku taanto oo ilaahayna aad tala saarato oo aad isdhiibto weligaa ma qabyoobaysid. laakiinse haddii aad noqon weyso qof aan dhammaystirnayn, qof aan aqoonin qoraalada socdo, qof aan qadarta ku qanacsanayn, waxaad noqonaysaa qof ilaahay xaggiisa hatii aan sharaf iyo ciisi ka lahayn. macaada la iska daa bani aadanka inay kugu daysadaan ay kalsooni kaa helaan. alxamdulilah sidaa u ogtihiinba walwal waa iska jiray oo xaggayga ah. haddana rabbilcaalamiinka ayaan wax walbo insha Allah weydiisanayaa sida uu ugu talagalay inay noqoto si naxariis leh, si kheyr leh, si aniga iyo ummadda islaamka oo i fiirsanayso oo iga warsugayso oo idhararayso ay maxay ahayd ku qaboobaan. haddii aysan noo qorneen aan qadarta qaadano oo aan isku boorigelino ama aan isku dhiirigelino in ay tahay qoraal, in ay tahay wax adduunyada ka dhaca. waa arkaa wax badan oo adduunka ka dhaco oo hadday tahay xuquuqda bini aadanka in lagu dheelo, hadday tahay in qof dad awood sheegtay ilaahayna uu bulaaliyay ilaa xadna awoodooda la fiiriyay markay wax qaban waayeen awoodda rabbi oo daqiiqada ma sha Allah ee ka tan weynaatay. marka yacni masadkan waxaa kamid ah masad aniga igu saabsan oo walwala iyo adinka aad walwalaysaan. marka insha Allah markasta waxaan sugaynaa rajada ilaahay kama quusanayno, ilaahay baan magan u nahay, ilaahay baan waxaan weydiisanaynaa in uu gidigeenba qalbiga noo qaboojiyo. sidaa ula socotiinba fasaxyadii caruurta oo iskuulaadkaas soo dhow, mar haddii fasax la galana walwalka hooyadu waa kusii yacni badanayaa. anu waxaan islahaa xag allana aan ilaa hadda ka rajaynayaa oo aanan ka rajo dhigin in labadii caruur ay iibi bilaabeen inaan arko oo waaweyn ay igu soo wareegtaan fasaxan. aad baan u rajo weynaa, laakiinse siday ayagu leeyihiin rajo igalama muuqato ilaa rajada alla mooyaane. alxamdulilah ilaahay wuxuu qoro waa qadarullah, qadartana mid la diidayo maahan. marka qofka waxaan rabaa bini aadanka in uu mid fahmo midna uu ka cararo. adigu waxbaad iska hadlaysaa oo afkaada karo oo ma ogid in aad qof kale aad dulminayso ama qof dulman kusii tutumanayso. yacni taas markaan leeyahay waxaa kamid ah ilmihii waaweynaa baaba loo ogolaadee aaway ma waxay sheegaysay af miyuu ah. alxamdulilah ilaahay baa awoodda iskale, awood bay sheeganayaan. xilli kastoo awood la sheeganayana anigu maba haysta awoodda ayagu ku faanaya. anigu waxaa haysta awoodda rabbi iyo qadarta rabbi. waxaana aaminsanahay Allah subxaana qaadirka inuu wax kasta asaga ii saqiri karo. ilaahay baana weydiisanaya insha Allah inuu ilaahay dambigeena cafiyo, dambi waalidkeena cafiyo, iimaankana nagu sugo, islaamka murugeysana murugta ka dulqaado. qof kasta oo xaquuqdiisa lagu dheelo, hadduu gaal yahay hadduu muslim yahaba ilaahay baa ka jaaseynaya qofka ku dheelo, ilaahay baa ka abaal marinayo qof walbo ahaataba. marka taas rajadaas anoo qabay alxamdulilah oo ilaa abtinawdaana qabo oo ani xag alla aan rajo ka sugaayo oo mar walba rajadaydu ay tahay rajadii rabbi raxmaanka ahaa aan ka sugaayay. isma dhiibaayo, ma niyad jabaayo.
walwal saasa ma qabo walwalka aan qabi karaayo waxay tahay in noloshaydu ay saameyso maxaa kula soo darsi karo laakiinse kaas inaan ka fikiro ma loo baahno haddii ay iraahdo maxaa dhici karo may waa qalad waayo adduunyada ilaahay baa iskale ilaahayna maba dhamaystirin soo ani marka waxba aan ka fikirayo waaba qalad in waxaan u baahanaa oo kaliya aan nafteyda xaal mariyo oo aan wixii dhaca iraado alxamdulilah wixii dhici doono aan iraado alxamdulilah oo aan ilaahay subxaana qaadirka markasta iraado ilaah adigaan sharta kaa magan galay aan ku shukriyo ku xamdiyo alxamdulilah qabow naxariis nabadgelyo deganaan aan ku haysanaa gurigeeni alxamdulilah ilaahayna waxaan ka baryayaa nuurka gurigeyga inuu dib ilaahay iigu soo celiyo dadkaan aan ila hadlayna ilaahay iisoo jeediyo ilaahay baa qasbi karo waana kuu sheegayaa markasta waa kugu celcelinayaa adiga xatii islaamka ah markaad qaldanto oo qof aad ku qaldanto ciddoo doono ha ahaadee waa lagu bulaalinayaa awood baad sheegato soo mahan awoodaada ayaa lagu gaarsiinaya ilaa xad intay la egtaha ma lagaa waarinayo marka awoodii lagugu talagalaad dhaaftay waad is og tahay ma lagaa waarinayo xadkaas aa lagu istaajinayo bas laakiinse ogow qofkaas waxaa loo baahan yahay asaga xatii siduu wax u rabo marka wax u dhici waaya inuu ku waana qaato laakiin kuma waana qaadanayo qiil kale iyo akhlaaq darro kale buu sii abaarayaayo waxbuu sii moosmooshayaa ilaa isma dhiibaya marleyba oo shaydaana is dhiibi lahaa mar hore marka alxamdulilah annaka wax kasta oo ilaahay xaggiis ka qoran waa ku qanacsanaa adinkana ku qanacsanaada maxaa kuu hara iyo muddadee waxba ha dhihina isdejiya xaaladda dejiya ilaahay ku xirnaada annaka dhan aan iska dhigna adduunyada sida ay u taalo haddaa adduunyada fiirisid yaa og beri inaa gaaraysid allahu yaclam yaa og saacadahan aan kula hadlaya habeen dambe inaan kuusoo fariisanayo keliya baan leeyahay aada arkaysid allahu yaclam marka tartiibta wax ka qorxon male adduunyada deganaanta wax ka fiican male kalsoonida alxamdulilah allaha kugu beero aniga kalsoonidayda rabbilcaalamiinka ka mas-uula aad ayaan iskugu kalsoonaa alxamdulilah alxamdulilah ilaahay baa mahadale wax walba oo dhaco hadday imaato wax kasta oo dhaco waxaan leeyahay alxamdulilah waayo ma doonayo inaan waashto mana doonayo inaan qabyoobo adduunyada ayadaa qabyaha laakiin anigu naftayda inaan inta waashto waxaan suubiyo maryaha dhigto iska hadlo hadalaa ii qalbi inaan ku hadlo anoo hooya may ilaahay waxaan weydiisanayaa samir xafidaad xafidullah inuu ilaahay i xafido ani inta islaam marka taas waa taas walaalahay midda labaad oo rabo insha allah inaan in iraado oo aniga fikradeyda ah waxay tahay ku tusaale qaado qofba qofkuu kaaga dhow yahay haddii aad taqaano haddii aada aqoonina muhiim maahan in aa qofkan aa adigu waxaad doonto ka cabirato laakiinse afka qofka xugmi afka qofka ka qor wixii runa iyo wixii beena afka qofka adigun xugmi adigu xakunsida noqo camal waayo haddaadan qofkaan xugminin xogta runtaa ma ogaanaysid xasarad kale iyo dembi baad sii beeraysaa naftaadii baa dembi ka gashay nafsi baad ilmahaadi usoo hoyisay noloshaadii baa been iska dhaadhacsiisay berri marka adiga markay wax kugu dhacaan ama kaag iyo waxaa kula soo darsaya xiska inuu kaa tago ama inaaba qofkaad shala ku wiirsanaysay ay 100% kaa fiicnaato shala qofkaa qiil u raadinaysa 100% inaad gaari weyso wayna dhacdaa wax kasta way dhacaan waa adduun waxaan marka haddii ilaahay raalli ka dhigo aniga adinkoo dhan waxaan leeyahay si wanaag iyo sharaf iyo cisi iyo karaamo ku jirto ayaan inii jecelahay ilaahay ha in sharfo ha ii walwalina waa xaramo ogi waqtiyaan gaaray allahu yaclam waqtiyaad gaaraysa allahu yaclam xiliyaan kala imaanayo allahu yaclam adigu ma ii sheegi karta ana ma sheegi karo marka
ilaahay baa ka sheehida wax kastoo adduunyada korkeeda saaran ilaahay baa anaga dee naga anfici karo alxamdulilah shukr rabbil caalamiin haddaa ila joogto waa ila joogtaa soo dhawow waa ku faraxsanahay welcome channelkayga kusoo dhawow haddii aad igu cusub tahay subscribe-ka ii saar like iyo share-ta iigu qabo comment qurux badan oo miisaansan wax kastana waxaa ka bilowdaa bismillahi raxmaani raxiim iimaanka allah ku sugo alxamdulilah